السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كسو دبادي تبجنا عالكيغا يبكاستر ان waxaan sii wada doonaa casharadeenii Adobe Premiere CC 2018 waxaan bixin doonaa sida video background-ka looga bedelo insha Allah Adobe Premiere na soo kacay marka hore intaanan video background ka bedelin waxaan ku sheegaa laba shay markii aad rabto inaad video background ka bedesho marka hore markaad video-ga duubayso waa inaad isticmaashaa hal background oo hal color sida standardka ah waxa la isticmaalaa green screen mid labaad waxay tahay markii aad video-ga duubayso dharkaaga iyo background-ka inaysan saameyn isku yeelan ay wax color isla lahaanin ay kala duwanaadaan color-ka iyo dhar soo aad amaadsan tahay waxaan sii gudugalaynaa casharkeeni marka hore waxaan soo gashanaynaa video iyo background aan bedelayno مثلا دبل كليك انا كوسيسا كو اي كنترول اي انا دهدو اي انا دهدو فايل امبورت that's easy وحواي سيده حب mid kamid waa isticmaali kartaa ana sidoo fudud waxaan isticmaalaa import media double click ayaa ku siinaa waxaan u baahanahay video-gan iyo background-kan okay markaasaan ku dhaho waxa soo galay video-ga iyo background-ka ay soo galay waxaan soo jiidanayaa video-ga soo jiida kabacdi inta markuu plus noqdo ayaan deenayaa automatically hadda video-gan fiirable si aad u jeedo ninkan wuxuu isticmaalay dharkiisa jaakadiisa wax waay madow background-kiisa waxa waay one color waliba ta green screen ayuu isticmaalay okay markay saas tahay waxaan soo gashanaynaa marka hore waxaan kala saaraynaa codka iyo video-ga waxaan sameeynaa meeshan enable ayaa ku qoran masaxlayna aan linki in laba shay la kala duwa okay marka sameeyno meeshan waxa u baaneynaa video background-ka ayaa soo qaadaynaa okay marka baan soo qaadanayna ayaa u jiideynaa ka bacdi automatically okay marka saan u jiidno saan oo sabaxo hadda ma aanan bedelin wali waxaan tagaynaa meeshan waxaan ku qoraynaa k aad waan ugu qornay k ultra k so effects hadii ka maqan yahay waxa tagaysaa meeshan window meeshan waxa ku qoran effects ama hadii ay wax kamida wax badan ay ka maqan yihiin waxa tagaysaa workspace kan ka bacdi all panels dhamaan wixii ka maqnaa dhan waa ku soo noqonaya insha Allah asxaabta meeshan ka ku qoro k oo effects ka ku qoro مثلا كقرن alter k ayaan rabaa alter k ayaa soo jiida kabacdi meesha video-ga plus markay noqoto ayaan ku sii deena automatically marka ku soo deeyay meesha maxay soo baxay effect control ayaa meesha soo baxday meesha ay ku saaran tahay aweysane effects meesha ka helaysa window ka helaysa meesha ku qoran k color automatically qalinkan ayaan qadanaa oo color-ka kabacdi marka saan dhaho waan ku sidee fiiri automatically marka ka baxo wuxuu noqonaa madow kabacdi marka saan dhaho green screen automatically click ayaan ku siinaa hadda waxa isbedelay automatically background-ki oo watay green screen-ka hal color-na kuma helin ilaan one color inaad isticmaasho ayay ahayd color-kaaga inuusan saameyn background-ka okay marka saan dhaho ku dhufto marka ninka automatically wuxuu joogaa meel caalami ah oo background insha Allah background-yada kale waxaan idin soo dhigi doonaa linkiga description-ka YouTube-kayga fadlan ka faa'iideyso wacan hada mahadsanne subscribe igu qabo okay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh